kusoo dhawaada khaataan dhegaysanaysaa ee barnaamijkan oo ah kii 11aad barnaamijyadii ku saabsanaa taariikhda Soomaalida. barnaamijkan maanta dhegaystayaal waxaanu ka bilaabaynaa dagaalkii dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliya sanadii 1977 iyo 78. dagaalkaasi arrimihii ka horeeyay intii aanu dhicin dagaalku waxa kamid ah Itoobiya oo si weyn ay wax isaga bedeleen kadib markii kacaankii Itoobiya ka dhashay waxa xoogobay dareemadii qoomiyadaha kala gedisan ee ku noolaa dalka Itoobiya gudihiisa. dawladii uu hogaaminayay Mengistu Haile Mariam si xoog leh ay iyaduna dareemadaasi cagta u saartay ama u cadaadisay. waxa isaguna waqtigaasi xumaaday xiriirkii u dhaxayn jiray Itoobiya iyo Mareykanka oo xilligaasi madaxweynaha ka ahaa madaxweynihii la oran jiray Jimmy Carter. bishii abril haddaba sanadkii 1977 ayaa Itoobiya ay xidhay Kagno oo ahayd xarun xagga isgaarsiinta oo Mareykanku ay ku lahaayeen magaalada Asmara. waxaana Itoobiya Mareykanka ay ku eedeeyeen in siyaasadoodu ay tahay mid munaafiqnimo ah marka la eego xagga arrimaha la xiriira daryeelka xuquuqda dadka oo ay ku eedeeyeen Mareykanku inaanu marna ka hadlin in xuquuqda dadka lagu xadgudbay xilligii boqor Haile Selassie uu ka talan jiray dalka Itoobiya. waxa kaloo ay saareen iyagana saraakiishii Mareykanka ka joogay dalka Itoobiya iyadoo xiriirka u dhaxeeyay Itoobiya iyo Mareykanku muddo dheer ahaa mid aad u qoto dheer. bal imaka haddaba dagaalka ka hor dhegaystayaal aynu eegno sida uu ahaa xiriirka u dhaxeeyay Soomaaliya iyo dalkii la oran jiray midowga Sofiyeetiga. gaar ahaan Ruushku waxa uu ka qabay dagaal dhexmara Itoobiya iyo Soomaaliya. General Galaal oo saraakiisha sare ee ciidamada Soomaaliya ka mid ahaa xilligaasi ayaanu wax ka weydiinay waxaanu ku jawaabay. waxa weeye hada aadan waa maray horta dagaalka ummadda Soomaaliyeed oo dhan markaas way rabtay in dagaalkaas la galo oo iyadoo loo arkayay in fursad loo helay in gumaysigii amxaarada meesha laga saaro. Soomaalida kaliya ma rabin waxa la moog yahay in bilowgii dagaalkaas in xataa midowgii Soviyeeti uu doonayay oo nagu dhiirigeliyay oo waliba nagu adkeeyay. sababtan waxay ahayd markii laga saaray Masar laga saaray oo waayay kanaalkii iyo xoogii Mediterranean meesha uu dhulka uu ku lahaa ayay u soo baxday imbalance-kii powerska oo adduunka ama strategic deployment of ciidamadoodii waaweynaa in hoos u dhac ku yimid ayay ogaadeen. markaas waxay goosteen ayaguna inay arrintaas ka dabaaqtamaan. dabaaqtankiina wuxuu gaarsiiyey inay xiriirka ay Soomaaliya la lahaayeen si adkeeyaan. Itoobiya inay meesha ka saaraan rejiimkii Itoobiya inay meesha ka saaraan oo boqortooyada ahaa. waagaas ayaan ogaanay xataa in Yementii Koonfureed iyo jabhad ka dagaalami jirtay dhinaca aan u malaynayo xuduudda u dhaxaysa Yemen iyo Oman in jabhad ka dagaalamaysa iyo Yementii Koonfureed inta la isbiirsadaan in destabilization lagu rido boqortooyada suldaanka ka taliya Amman ka taliya ayagoo ogaa in haddana xasillo darre ay ku socotay Iran boqorkii shaahay Iran ay ku socotay. ujeedadooda weynuna waxay ahayd inay meeshan qorigan Hormuz la yiraahdo inay qabsadaan. markaas saas ma waxa waday midowgii Sofiyeetka wadamiya midowgii waxaas aan ku sheegay midowgii Sofiyeetka waday oo iyagu argutaan markuu Port Said iyo waayay kanaalkii sidaas ayuu rabay. annaga wuxuu yiri dhulkiina hadduu diyaar yahay waxaan gacan baa idin siinaya ka qabsada. intaas kalena waa noo sheegeen aan halka ka dhaxgal marka yaa idin sheegay ma niman saraakiil idin sheegay ma siyaasiyiin Ruushka idin sheegay. markii hore horta 73 markii meesha laga soo saaray waxa dhulka yimid Marshal Grechko ninka la yiri jiro ciidamada wasiirka gaashaandhigga ahaa. ninkaas ayaa soo horseeday markaas oo waxaas waa ka wada sheekaysteen isaga iyo Maxamed Siyaad iyo madaxda sare ciidamada. dabadii markuu noqday waxa la soo diray nin Marshal ahaa Sergey Grechkov la dhigay. ninkaas noo yimid dhowr qof buu la kulmay aniga kamid ahaa Samantara kamid ahaa Maxamed Siyaad kamid ahaa. waa sheekay wixii uu sheegay wixii uu sarsaray wixii uu xagga uu dhiftay. adiga markuu dareemay in qoonkaanuna ay anagu lafteena aan danaynayno ayuu yiri waa noqonaya waxaan soo dirayaa niman qabiiriin ah oo arrinta idin kala hadla. ka dhaxgalay waxyaabaha uu taabtaabanayay maxaa kamid ahaa markaa? wuxuu lahaa adduunkii balaskii waa lagu dheeray Masar baa ku dheeshay
hadda wadamadii hanta wadaagu saaxiibadii ay adduunka ku lahaayeen uma soo gurman karaan, meel walba laga xiray, dariiq walba waa loo fariistay. annaga wuxuu nagu cabsiinaya markaas xataa haddii dhibaata idinku dhacdo idinma soo gurman karno ayuu annaga markaas ayuu nagu cabsiinayay, oo meel walba waa nala ka xiray. sidaas ayuu sheegayay. ninkii admiraalka ahay oo la keenay oo lasoo diray markuu kii marshalka aha noqday ayaa wixii details u sheegay aniga Samantar iyo nin la dhihi jiray General Abubakar Xasan, Allahu naxariistay, dhintay. ayuu si qaasan oo u sheegay. markii wixii la isla fiiriyana anigu si qaasa ayaan ugu sii dhoon daray markii hoggaanka sahanka ayaan anigu joogay oo xaggan maaragtay wardoonka sirta iyo waxyaalahaas ayaan gaashaaniga u joogay. waa markaas markay nagu dhiirigelinayaan inaan gobonadoonkii dib u soo noolayno, inaan halkaas ku dhifanno. General Galaal waqti ma ahayd goortaas? waa 74 bilowgeedii. nimanku waaba degdegsanayeen. annagu hadda markaasba waxaan bilownay laba walxadba waa bilownay codsi cusub oo hub oo inay nafsiyaan iyo in aan annaguna gobonadoonkii soo noolayno. gobonadoonkii baan soo noolaynay. anigaa la ii xil saaray tababarkooda iyo aruurintooda iyo howlgelintooda iyo taakulayntoodaba. adiga 75 dhammaadkeedii ilaa iyo waxaan wadnay 77 bartamaheedii. kaas wuxuu ahaa General Galaal. haddii haddaba dalkii midowga Soofiyeedka aan waxba markii hore ka qabin Soomaaliya in dagaal ay ku qaado dalka Ethiopia oo dhulka Soomaalidu ay sheeganaysa ay xoog ku qabsato oo waliba Ruushku arintaasi uu ku degdegsanaa xilligii laga saaray dalka Masar sida uu noo sheegay General Galaal. su'aasha la isweydiin karaa waxa weeye maxaa markii dambe bedelay mowqifkii dalkii midowga Soofiyeedka la oran jiray uu arintaasi ka taagnaa. wasiirkii warfaafinta ee Soomaaliya xilligii isbedelkaas uu ka dhacay waxa uu ahaa Cabdulqaasim Salaad Xasan. Cabdulqaasim haynoo faahfaahiyo halka sabta ku qorantay xiriirkii wanaagsanaa u dhaxeeyay dalkii la oran jiray midowga Soofiyeedka iyo Soomaaliya. bishii December 1976 waxaa Mengistu la galay heshiis iskaashi iyo military dawladdii midowga Soofiyeedka. heshiiskaas ayaa dhibaato weyn dawladda Soomaaliyeed u aragtay. dabadeedna waxay ixtijaaj ama protest uga qadintay dawladdii midowga Soofiyeedka, waxaanay u caddaysay inuu heshiiskaasu ka soo horjeedo midkii ay horey ula gashay dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda Soofiyeedku u galeen 1974 oo dhigayay inaan labada dhinac ee heshiiska gashay dhinacna xulfi la noqon karin ama la bahoobi karin dhinac dagaal ka dhaxeeyo dhinaca kale. arrintaa markii Soofiyeetiga la gaarsiiyey waxay soo direen madaxweynahoodii waqtigaas Nikolai Badgorny oo booqasho ku yimid Soomaaliya 2 ilaa 3 Maarso 1977. Badgorny waxaa loo cadeeyay inaan marnaba la aqbali karin hubaynta Soviet Union uu rabo inuu hubeeyo dawladdii ama maamulkii Mengistu Haile Mariam kaas oo dagaal naga dhaxeeyay. ha yeeshee iyagu waxay ku dadaalayeen in loo arko arrinta si kale iskaashi goboleed la sameeyo, xaaladana si kale lagu dhameeyo. taasaana waxay keentay in isla bishaas Maarso uu dalka yimaado Fidel Castro madaxweynaha Cuba oo ka socda dawladda Soofiyeetiga 15 Maarso inuu yimaado dalkan Soomaaliya uuna soo jeediyo in wadahadal qarsoodiya magaalada Cadan ay ku yeeshaan madaxweynayaasha Maxamed Siyaad Barre, Mengistu Haile Mariam, Castro, Fidel Castro iyo Saalim Rubiici Cali oo madaxweynihii Cadan ama Yementa Koofureed ahaa. shirkaas oo la aqbalay ayaa wafdi uu madaxweyne Maxamed Siyaad Barre hogaaminayay ka qayb galay. halkaas waxaa Fidel Castro ka soo jeediyey talo uu ka siday Soofiyeedka iyo bahda beesha hanti wadaagga ah oo oranaysay
waa in confederaaliya habka la yidhaaho dawlado iskaashaday oo confederaal ah waa inay noqdaan Ethiopia, Eritrea, Soomaaliya iyo Yemanta Koonfur. fikradaas Mengistu uu ku gacan sayray isagoo leh ma suurowdo in Ethiopia iyo Eritrea ay isku si iyagoo siman uga qayb qaataan confederaaliyadaas. dhanka kale Maxamed Siyaad Barre wuxuu yiri anagu waxba kama qabno ha yeeshee waa in marka hore loo ogolaadaa dadyowga Soomaali galbeed iyo abo ay ka talintooda markaas dad xora oo confederaaliya wada gala waa in la noqdaa taasoo iyana la diiday waa lagu kala tagay waxadii qolaba meesheedii bay aad dabadeed waxaa dhacay in loo diray Sovietiga markii la ogaaday inay ku sii soconayaan taageeridii Mengistu in bishii June 1977 loo diray madaxweyne ku-xigeenkii Soomaaliya ahaana wasiirka gaashaandhigga Maxamed Cali Samantar halkaasoo uu kula kulmay Moscow xogayihii guud ee xisbiga shuuciga Brezhnev marshaalkii xukumayay ciidamada gaashaandhigga Marshal Ustinov iyo madaxdii xukuumadda dalkaas dambaal adag oo uu ka siday dawladda Soomaaliya oo nuxurkeedu kaan soo sheegay yahay oo ah xulfi inaad la noqotaan haddaad tihiin Sovietiga ma qaadan karo ayuu gaarsiiyey iyaguna waxay cadeeyeen inay danaynayaan heshiiskii iyaga Soomaaliya ka dhaxeeyay ha yeeshee ay rabaan in xaaladda si kale lagu dhameeyo arrintu halka markay marayso gobonnimo doonkiina uu dhul qabsaday doora ha yeeshee magaalooyinka waaweyn ma ahane baadiyihii oo dhan ay qabsadeen bishii Luulyo 1977 horaanteedii ayaa golihii dhexe ee xisbiga hantiwadaagga kacaanka Soomaaliyeed ee dalkan ka talinayay wuxuu yeeshay shir haneenkii qabsoomay ilaa subaxdiina socday shirkaas ayaana lagu go'aamiyay in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay toos u galaan dagaalka iyagoo gacan siinaya jabhadaha hubaysan oo la dagaalamayay xukunkii Mengistu. waata Cabdiqaasim waxaad ka warantaa maadaama haddaba golihii uu goostay in dagaalka si toosa loo galo ma jirtay cid iyadu talahaan soo jeedisay oo tiri dagaalka inaan galama si kale aan uga wareegno golaha dhexe dhammaantii way isku raacay in dagaalka la galo markii hal qof laga reebo waxaa diidanaa oo ra'yigiisa cadaystay inuu diidan yahay guddoomiyihii hoggaanka ideolojiyada xisbiga Cabdiraxmaan Caydiid oo kaliya diiday. waxaad ka warantaa Cabdiqaasim Allah ha naxariistay Cabdiraxmaan Caydiid markii isagu meesha ka dooday waxyaabaha uu cuskanayay in dagaalkaasi aan la gelin maxaad ka xasuusantahay Cabdiraxmaan wuxuu ahaa ragga aad xaggan mabda'a hanti wadaagga ugu dheer wuxuu xeelinayay kollayba aragtidiisa wuxuu xeelinayay xiriirkii lala lahaa beesha hanti wadaagga iyo Soviet Union wuxuu arkayay ama uu sahminayay kala tagga beesha hanti wadaagga iyo Soomaaliya ay kala tagaan inay dhibaato u keenayso meelahaas ayay ku socotay ra'yigiisu haddaan xusuusto waxaad ka warantaa Soomaalidu waxay ku maamad Cabdiqaasim haddaanad buur ahayn buur ku tiirsano maadaama markaasi Ruushkii u cadaysateen oo Ethiopia oo idin lahaa la dagaalamana dawladdii ay go'aan gaadheen la dagaalano ma hayseen markaa ama ma lagaga wada hadlay golayaashii arrintaasi lagu gorfaynayay cida kale ee ay Soomaaliya ku tiirsan karto markaa ama wax ballan qaad ma ka haysatay run ahaantii waa jirtay haba tabar yaraato diblomaasiyaddu waxa jiray dalalka carabta ah oo aanu ka mid ka nahay waxa taageero xoog leh ayaa laga haystay oo ama qadiyada loo diriraya ka haysatay ama dawladda Soomaaliyeed ka haysatay dalal kalena waa ay jireen ma faramaray Soomaalidu ha yeeshee sida marka dambe soo bixi doonta marna meesha lama dhigan garab leeg ciidan u dagaalama Mengistu iyo rejiimkiisii in Warsaw ay keenayso gurmad aan la arag inta badan taariikhda wixii dagaalkii labaad ka dambeeyay si dhif mooye oo cirka iyo baddaba ah oo taangiyo
diyaarado madaafiic sawaariikh leh intaba oo waqti kooban lagu keenay in la keenayo iyo ciidan socda oo 20 ilaa 25 kun ilaa 30 kun gaaraya oo isugu jiray Kuban, Soviet, East Germany, Yemen, حتى خبر ليبيا iyo Israa'iil intaas oo isbahaysiya ayaa ka hor imaanaysa qadiyadatan xisaabta laguma darin sababtoo ah markaa ma ayan muuqan kaasi waxa Cabdulqaasim Salaad Xasan inkastoo haddaba aanay Soomaalida u muuqanin sida shaxda u dhici karto haddii dagaal dhex maro Itoobiya iyo Soomaaliya waa marka koobaad ee dalkii midowga Soofiyeed loo oran jiray waxa uu cadeeyay Soomaalida in uu doonayo saaxiibtinimo wanaagsan in labada wadanba uu la yeesho sida ay noo sheegeen saraakiil goobjoog ahayd booqashadii ku tagay Maxamed Cali Samatar dalka midowga Soofiyeed 1977 waqtiyadii Ruushku uu bilaabay in xiriir wanaagsan uu la yeesho dalka Itoobiya isagoo saraakiisha xooga dalka Soomaaliyeed ugu waramayay markii uu soo laabtay rugtii saraakiisha ee magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in midowga Soofiyeed ay u sheegeen inay doonayaan xiriir wanaagsan oo dhexmara Itoobiya oo ay u arkaan markaasi kaasi inuu yahay mid aan waxba u dhimaynin ama waxyeello gaarsiinaynin saaxiibtinimada iyo iskaashiga u dhaxeeyay Soomaaliya iyo midowga Soofiyeed sida saraakiishaasi goobjoog ahayd ay noo sheegeen Ruushku waxa berigaasi General Samatar uu u sheegay sida uu ku waramay maalintaasi in Soomaalidu ay kala garato marka midowga Soofiyeed Itoobiya uu siinayo dabaabad iyo marka cagaf uu siinayo waxyaabaha kale ee dalkii midowga Soofiyeed loo oran jiray uu ugu ballan qaaday dhinaca Soomaalida waqtigaasi General Samatar uu ku tagay booqashada dalkii midowga Soofiyeed loo oran jiray waxa ka mid ahayd in isagu uu la wareego miisaaniyadda xooga dalka Soomaaliyeed in isagu uu siiyo shidaalkooda una dhiso warshad samaysa taayirada baabuurta iyo mid kale iyaduna samaysa baatariyada uu ka sameeyo magaalada Muqdisho waxa kale waqtigaasi Ruushku ugu ballan qaaday si Soomaalida uga joojiyo dagaalkaasi inay galaan in dhowr kun oo guri ciidamada uga dhiso degmooyinka Kismaayo iyo Sheekh iyo cusbitaal guud oo isla markaasna loo isticmaali karo dhinaca nasashada oo ka dhiso magaalada Ceergaabo arinta labaadna waxa ay tahay haddii mowqifkii Ruushku uu sida ahaa oo ka soo horjeeday dagaal Itoobiya iyo Soomaaliya dhexmara dhinacii kale ee Soomaalida oo carari lahaayeen oo ahayd Mareykanka mowqifkood muxuu ahaa madaxweynihii Mareykanka ee waqtigaasi Jimmy Carter oo ka hadlayay wixii Soomaalidu ay weydiisatay iyo sida uu ka yeelay waxa uu yiri that Somalia should not be permitted to succeed in trying to take Ethiopian territory, and I refuse to give the Somali government any weapons. waxa uu yiri Carter waxa ila noqotay in Soomaaliya aan looga ogolaanin in ay ku guulaysato doonisteeda ah in ay qabsato dhul Itoobiya ay leedahay waxaan markaasi diiday in dawladda Soomaalida aan siiyo waxba waxa dab halkii ka sii socday labadii dhinacba inay u diyaar garoobaan dagaal bishii June 26 sanadkii 1977 ayaa 70 kun oo qof oo beeralay ah oo ay tababareen saraakiil Ruush iyo Kuban isugu jira ay dowladtus ku sameeyeen magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya July dhamaadkeedina jabhadii loo oran jiray WSLF ayaa sheegatay in ay qabsatay goday xilligaasi Itoobiya waxa ay ku eedeysay in Soomaalidu weerar buuxo xadgudub ah ay ku soo qaaday dalka Itoobiya 7 bishii September waxa Itoobiya xidhiidhkii xagga diblomaasiga ay u goosay Soomaaliya maalintii ku xigtay oo 8 bishaasna hadal wada jir ah oo ay soo saareen Itoobiya iyo Kenya oo iskaashi rasmi ah oo xagga difaaci uu ka dhaxeeyay waxa Soomaaliya wada jir ahaan ay ugu eedeeyeen in Itoobiya ay ku soo qaaday weerar xadgudub ah oo qaawan hadda markii Itoobiya xiriirka xagga diblomaasiga ay u gooysay Soomaaliya waxa Soomaalida danjiro uga ahaa magaalada Addis Ababa Cabdiraxmaan Axmed Cali oo Turku magaadheer Cabdiraxmaan waxa aan weydiiyay bal dhinaca Itoobiya arrimo xagga dagaalka sida ay ka hayeen iyo iyagu hawshoodu waxa ahayd amaba ay qabanayeen xilligaasi arrimo ay xumaadeen Cabdiraxmaan waxa uu ku jawaabay waxa dhacday marka Itoobiya waxa aragtay Soomaalidu sida u diyaar garoobayso iyo sida tahay waxay ku qalceen oo arkeen in Soomaaliya ay soo weerarayso waana lagu oran jireen muxuu ahaa kuwa madaxda iyo deerka marka xafladda isugu nimaadno dhowr jeer bay ku yidhaahdeen waan ognahay inaad soo weeraraysaan laakiin waktigii baanaan garanaynin marka aad iyo aad ba waxay sameeyeen inay ciidamo xooga sameeyaan waxay qaadeen muxuu ahaa oo tababar u geliyeen 100 kun oo beeraleyda waxana xagga Eritrea waxana xagga Soomaalida u direeyeen
annagu haddaanu joognay etoobiyana waa arkaynay wax kale oo la qaban kara inaanay jirin waajibka ugu weyneena saarani uu ahaa inaanu warka militariga khusuusan iyo ka etoobiya ku saabsan siyaasadeeda aanu xaggeena ka dhargino si ay ugu talagalaan oo qorshe ay samaysanayaan muxuu xagga militariga ay ugu talagalaan waxaan odhan karaa etoobiya mukhaabaraadkoodu ama wardoonkoodu xagga soomaalida wuu fiicnaa soomaaliya si u diyaargaroobayso ciidankeeda taangeedeeda hubkeeda waxeeda oo dhan waxaan odhan karaa waxa ugu weyn aanu ka helnay etoobiya ee gaarsiinay muxuu ahaa muqdisho waxay ahayd inaanu helnay blaankii ama qorshihii maantoy war blank la odhan jiray haddii dagaal dhaco etoobiya ciidamadu se u dagaalamaya meelay ka dagaalamayaan qorshahooda waa maxay kaasi ugu weyna aanu helnay oo markaa iyadoo dhowr bood ay ka hadhay muxuu ahaa aanay dagaalkaan filayn inaanu dhicin yaanu kaa gaarsiinay kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan axmed cali oo ahaa danjirihii soomaaliya ka fadhiyey wakhtigii dagaalku uu labada wadan ee etoobiya iyo soomaaliya dhex maray magaalada addis ababa barnaamijkiina intaa ayaanu ku soo gabagabaynaynaa